بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحويدي سنينا تبارك وتعالى مركهوري إنه بشا نبد إنه قارسيو عافيماد إنه قارسيو دي إلهي إنه قارسينا إنه وافجيو خيرك كتيرة إنه سيدا أقفي عنك أقفي أيدي السنة إنه قدقو دادك رمضان كالحرين أيوه والعفين أيوه والسامح أيوه كوا إنه إلهي إنه قدر تبارك وتعالى. أريد أقول سابسا بشهر رمضان يو فضلك إلى ذهي وحكم إذا علماء المامي يحيي لمن هدر راعي إنه وحاوه الرئي إن تلمانه سيدي ذبا شيء إن لفضله وحيابها كلا ليدا وكستا وكفضل بديه وهول إلهي ليه تبارك وتعالى. إلهي دولكو كلا فضلي مكة وحكدغي يحرمك دولك ماشا او فضل بدن ربي تبارك وتعالى زمنك يا وقتك كلا فضلي رمضان وحكدغي زمنك وقتيدا او فضل بدن ميد كميد ملائكته كلا فضلي رسوشي بو كلا فضلي نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بو كدغي وهكذا إلهي isagoo adoomadiisa wada abuuray buu hadana kala fadilay hatta quraanki oo Ilaahay kalaamkiisa baa hadana kala fadilan oo suurada quraanka u weyn waa Faatixada ayada quraanka u weyna waa aayatul kursi marka Ilaahay uu kala fadilaa uu kala sareysiya Ilaahay baana iskale tabaaraka taala xikmad baana ku jirta bisha Ramadaan marka waxay ka mid tahay zamanka Ilaahay وفضلك قونيك عسيب وكمدي هاي فضلك هذا وحا كمدا وإلهي كو فضل تبارك وتعالى تيرك أفراد وتيرك إسلام ككبدا أيو بيشن إلهي قليه تبارك وتعالى تيرك الصونك لو تيرك أفراد وصونك واجبك أو فرضك بيشن رمضان بو إلهي كليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله أكيد تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بشاسا إلهي كو آدي ركن قاس يتير كاس وقتك له صومك فرضك واجبك أو وقتك لمالي وقت قاس لقليي وحيا لها بيشو كسو عنتها بكمت حكم إذا وقضبك لباذا قرآن كبا إلهي تبارك وتعالى إيضانا كوغوني علي سودقي دي سي سيدو الشيخ هذا الشرح يا شيخ محمود سودقي دي قرآن كبا بيشان لغو خاصي علي أيضانا وفضلي يديراد إلهي السي أون للقب بيشان وحكم إذا سنتك أردن هبين ندي سهبينك أغو فضلي بدن أيا بيشان إلهي قلي أيضاً لما وداعوا وهبين كان ليلة القدر والشيخ شرحي وخيرك يضاع عدل للي ما داي أي أردك أنتو كم بلود خير للي مدوكله السنة هذه اللي بدلنا وسديتن يسدح سنو هي السيادة واي هل هبين شقاء القواتي ما وحي أردك أنتها سديتن يسدح سنو وحادي ما يعني واحد كده ينتهي هذا الفيديو كله هل هبين هذا شقيس سديتني يصدح سنة صوت واحد عني لهيد إد بيلا لهيد إد مصروفا لهيد إد كل نوران لهيد هل كهبين الشقيسان لقوسينه هدي صار لي لها ما عد بس يحن له عروته حتى وينه كعين له صومه لأنه وحوي وحي كله ربي بكاكا في سيبه سديتني 3 سنة يا نولان دونه
haddaad laba sano aad isku darsato 3 sano warkeeda iska badaa marka habeenkaas qiimaha badan baa ilaahay bisha ramadaan geliyay khasaa'isteeday ka mid tahay aan lala wadaagin bishu sidoo kale waxaa ka mid ah fadaa'isheeda waa shahrul maghfira waa bil dambi dhaaf way ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa waa cafiya waa saamaxa acmaasha la sameeyo oo dhan dambi dhaaf baa ku jira soonkii waxa la yiri ruuxi ramadaan sooma dambigiisii hore waa la dhaafay xadiiskii Abu Hurayra saxiixay habeenadeeda ruuxi salaada isu taaga dambigiisii hore waa la dhaafay xadiiskii kale waa kii ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani salaad ila salaada kale laga gaaray dunuubta ilaahay ku dhaafaa ramadaan ila ramadaan kale haddii laga fogaado dambiyada waaweyn yani ramadaankan markaad si fiican u soonto ramadaanka kiisa kale intaad ka gaadhayso wixii dambiye yar yar oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala saas ku dhaafaya ramadaankaas soonkaas dhaafay lagu dhaafay marka waa shahrul maghfir waa shahru dambi dhaaf waa ilaahay khalaa'iq badan iyo adoomadiisa in badan oo kamid ah ayuu saamaxaa oo shahrul ghufraan waxa kamid ah waxyaalaha fadaa'isha ay leedahay acmaasha la sameeyo khayrka la sameeyo bisha ramadaan la mid ma aha bilaha kale umradii baa waxa la yiri hadaad ramadaan gudataan xaj bay u dhigantaa way ka duwan tahay bilaha kale i'tikaafkii ayaa ka duwan oo bilaha kale uma badnay nabigu inuu i'tikaafo sallallahu alayhi wasallam ramadaan buu i'tikaafis jiray waliba 10ka dambe ayuu u badnaa sidaas ay xaasaskiisu markuu dhintayna ka dhaxleen oo saxaabadiisii ka dhaxleen waa cibaado weyn oo sida qaalibka bisha ramadaan la sameeyo waxa kamid ah qiyaamkii iyo salaadii taraawiixda ee la isugu iimaanayay ee la wada tukanayay nabigu ramadaan buu sameeyay sallallahu alayhi wasallam sidaas ayna muslimiintu ku dhaxleen jiil can jiil ilaa maanta ay ku socotaa waxa kamid ah khasaa'ista ay leedahay akhriskaad quraanka oo sheekhu sharxay khasaa'isteeda waxa kamid ah habeenka ugu horeeya ramadaan dhasho bishu dhalato isbedel baa ka dhacay adduunka isbedel raadkiisu inoo muuqdo ayaa dhacaya maxay isbedelka dhacaya sida nabigu ku sheegay xadiidka saxiixayn ku yimid iyo qeyrkoodba habeenka ugu horeeya markuu ramadaan dhasho waxaa la furayaa iridaha jannada laana khayrka iyo wanaaga jannada lagu galaa badanaya iridii naartana waa la xidhaya laana wixii dadka naar geyn lahaa baa yaraanaya iridii naartana waa la xidhaya qodobka saddexaad waxa weeyaan shayaadiintii dadka duufsan jirtay oo khayrka ka hortaagnayd xumaantana ku xambaaraysayna koodii sii dardarnaa waa la xidhxidhi waa la katiinadayna inta ramadaan ka dhamaanayo way xidhxidhnaanayaan wixii dadka ay ku sameyn jireen bilaha kale kuma sameyn karaan ramadaan xadiidka qaar waxay leeyihiin shayaadiintii baa la silsiladeyn waa la katiinadeen waa la xidhxidhi حديث كلا سي شرحي او ليهي مردة الشياطين شياطين تكودي مدح ادكاي شركه يعني وحو شركه بدنا مدحدا اها كوا صالح خيري كوا ير روح حدود دال او كادكان كرو يا جوجا iyo naftaadii sharleyda ahayd labadaas marka kugu salidan saas taladeed isbedelka dhacaya iyo shayaadiinta in shaqo laga qabto la xirxiray inaga raadkooda inoo muuqda midii ka dhashay inoo muuqdo raadka inoo muuqdo wuxuu yahay ramadaan markuu saa u dhasho goobaha khayrku waa buuxsamaya masaajidii meelka istaaga male ruuxii salaada faradka lagu kari laayay tacbaanka ah waxaad arkaysaa 11 ragcadood buu taagnaanaya juz baa lagu dul akhrinaya meelaha qaar kood 13 ragcadood buu taagnaanaya juz baa lagu dul dhameynaya laba juz 3 juz baa marka qorto lagu dul dhameynaa uu taagnaanaya 10 daqiiqo salaada waajibkaana muusan taagnaan jir kolba lug buu qaadi jiray
كل بلوك بكو استاجر رفعت كهست ما هي اسبدلي يا حبا اسبدلي ضد بدن المساجد أقوون شرين بسوق لي مساجد سيداس درادد حاجة اسبدل كوكيمد اسبدل كوكيمد شياطين تي لقبتي أيات ضد بدني كصوفة كذين شياطين ضد بأوح الحرام وحابيس ده وجرا أسكرجي كهور تاجنا يا حبس كهور تاجنا هدي لقى قبته يسقى حبس الله ديكو صو عرّي ميس مركز ضد كوا محابيس صوفة كتحوه محابيس الرداء سوتش بهيوه أثر كأن أركينا يواك النبي قلت المام صلى الله عليه وسلم وشياطين تلا حري أي كإيمان إنسان إن يدتكو أي خير كسوق قابلان وحي خاص كنت هاي يضرع بشهر رمضان إن خاص كنت واحد قراني مركي بيشو ساو بحول عيدو هبين كعيد أبا ضدكي مساجد بوحين هي أركيميس وردتك حقيقة لا هذه معك عايزتي نيكي يقول سود داي بقار بدن يا جنفك كلفتي مركا وخصائصته بالشيء كمته وحكم ذا خصائصته هذا بشو وبالإله تبارك وتعالى أدومديسا إن بدنه كم ذا النار تأو كسامح نار تكعفيه نار تكحريه نبي أنا وحكسه صلى الله عليه وسلم إنه يلي بين كستا ورمضان هبين نديسا كم ذا إلهي وحوليه هي الضوماء ونار تكحريه رواية قاركلو حليهن مركل أفوريه عند فطره مركل أفوريه عند كل فطر مركز طول أفوريه تطبضن بالنار تلقى حرينيه إذا نوار رمضان أيا لوش شيء مزيدة يخصص داس وحكم إذا بشهر رمضان وشهر الصبر وصبح الصبر تدك الصبر كودي أتكيسك الروح بصباح طاعة إلهي لوج الصبر وتنهدت المامينية حلقيا ما مركا رمضان وصنهين إن تصونتكو مفضوضة يا لأن وحوي قراء ذات برتي يقددي يحوجاجي الله قبضتي بعد أن تشوفين كرن لكن بشهر رمضان مركا يسوق شصونك مفضوضي ضاعدي واتكو صبري صلاة دي هبين كي واتكو صبري قرآن أخس كي واتكو صبري ضاعدي صبر كلو صبري أتكيسي قالوا له يهبا موقني معاصيدي الذنوب تيو لقى الصبري بازو بحيس وضد بدن أو قسن شري بلها كله وكسر يا بشهر رمضان نكي بالود لها حتى قار بدن ومباحات فر بدن باللقى فوقانية واللو لقى فوقانية محوها هاي خير كان إن لقى فايدس وبالصبر مرك صبر كاسا مرك إلهي وحكوسينا يا دتك وحوين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر كاسا إلهي وحكو بحنايا أجر عن حساب بالله وحكم إذا وبله بشر كم إذا خصائص هذا كم إذا وشهر تزكية النفوس والتغلب على النفس الأمارة بالسوء وبشان وبلها نفط الظاهريو الروح وكأت كان كرو نفتي سيشر لي داهي وبالسور دويبة نفتي كأت كيد كتشيدتي بلغاga كلمي والضعيف مركب بشهر رمضان صاحبك قربك هو هاي الشيطان أهانا ولا قبت ورتوا يدا كليجت أيدينا ولا ضعيفي أيضا ضعيفة وحكاية بهانتها مركب حوجا ون إناد كوير ديرته أودنا يرى استعمار واتكأت كان كرتا مركا نفط هذا مركا إن الظاهري سو عمل كان فرها بدن صون كان طاعة فرها بدن الشيطان كان لقى قبتي وحي كيني كرتا إن أد سميسو اسبدل التغيير نحو الأفضل إن أد اسبدو شو حاجة وناكسن أد اسبدو شو خير بدون ودن سمين كرينين رمضان كوا كبريا وريا ذو سمين كرين حمان فرب بدن ودكو تشرتيش رمضان كوا كاغوينيا نفط هذه أو كأد كيد وكو تشبينيا سيداس درادي waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo ramadaanku intuu ku jiro hadaad dadaal fiican sameeyso naftaada waxaad gaarsiin kartaa meel ayna dib damba kaaga soo noqon karinba mar dambe ayna kula murmi karinba dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahaay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaarsiin kartaa ayna ka soo noqon karin laakiin hadaad meel dhow iyadoo joogta ramadaanku ku dhaaf intay kugu soo rogaal celisay ku lagti
jaanis weyn way marka in nafta la daahiriyo quluubta la daahiriyo nafta la tarbiyeeyo la taskiyeeyo bisha ramadaan jaanis aad iyo aad u weyn weeye waxa kamida bishani ay leedahay oo kamida mazaayaadkeeda bishu waa bil caafimaad dhanka adduunyada xataa marka la fiiriyo waa bil caafimaad sababtu wax weeye cuntadan faraha badan idkhaalu tacaam ala tacaam cuntadan una iska dulgeynayno cudur oo dhan baa ka dhashay cayil baa ka dhashay cayilkiina hadda cudur buu noqday cudurna wuxuu ka yimaadaa inta badan say culimada dibbigu tilmaamayaan cuntadan uun meesha lagu gurahayo khaasatan magaalaynu joognaayo cuntadiina ma gubayno ma dhaqdhaqaaqayno ma soconayno ma dhididayno xafiis baan fadhinaa dukaan baan fadhinaa dhaqdhaqaaq male calooshiina waa buuxinay maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya calooshii inay jirato hadday jiratana jirkii waa jiraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaraan taaganna kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiikar qaba mid sonkor qaba mid cholesterol qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la banaynaynin ilaan caloosha inay nafistay u baahan tahay waa ka nabigeenu yidhi sal lla alay slam xataa markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya thuluth liطacaamihi wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasihi xataa markaad cunayso saddex u qaybi qayb cunto geli qaybna cabitaan geli qaybna bannee aad ka neefsatid saddexdiiba haddaad un bariis ka buuxiso ka war cabitaankii waa dulsaar neefsina maba jiraba barina waxa weeye gaas baa ay haye iyo balaaya ay ugu dhacday waxbaad bilaabayna bisha ramadaan marka waa jaanis weyn saas daraaddeed baa yani xataa iska dhaaf muslimiinta gaalada dhakhaatiirtooda iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la banneeyo waa nooc oo sixada iyo caafimaad ka mid caafimaad weyn baa ku jira ilaan jawaanib fara badanoo waxay leedahay cibaadaadku ay leeyihiin jawaanib faa'iidana waa leeyihiin salaada habeenkii Soomaaliya salaada habeenkii salaatuleelka la taagnaanayo rukuucda lagu daahayo sujuudda lagu daahayo waa exercise waay dhinac marka laga fiiriyo waa cibaado laakiin dhanka kale jidhkii baa jimicsanaya jidhkii baa jimicsanaya mar waa taagan yahay oo lugii baa jimicsanaya mar waa foorartaa mar waa sujuudaa waxaasoo dhan circulationkii iyo dhiigga dhaqaaqiisii iyo jidhkii jimicsigiisa waay dhinac faa'iido adduunyaa baa ku jiro caafimaad ah soonkii sidoo kale saas daraaddeed bishani khasaa'isteeda lama koobi karo laakiin aan kusoo gabagabeeyo fawaa'ida faraha badan iyo faa'iidooyinkaasi yaa iskale ma dadkoo dhan baa iskale maya intaasoo khayr iyo ka badan iyo wixii la sheegay waxaa iskale ruuxii laba sharti laga helo laba qodob xaqiijiya qodobka koobaad wax weeyaan in uu ruuxu dadaalo hadduu dadaali waayo oo bishu dhaafto isagoon ka faa'iidaysanin ramadaan ruuxa faa'iido uma ahe khasaaray ku tahay wabaal iyo cuquubay ku tahay waa ka jibriil nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam malakul jibriil alayhi wa ala nabiyina sallallahu wasalam nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam saddex ruux buu habaaray malakul jibriil nabi maxamedna aamiin buu yidhi sallallahu alayhi wasallam saddexda ruux ee la habaaray ka waxa ka ah ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhamaaday isagoon loo dambi dhaafin habaar Allah ku rido kaas Allah fogeeyo jibriil baa habaaray nabi maxamed wuxuu yiri aamiin Allah aqbal waay marka kan aan ka faa'iideysanin oo dadaalin waxa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga xuquuqay ku noqotay laana wixii jaaniska ilaahay siiyay ka faa'iideysan waay saas daraadeed marka dadaasho waa koow hada dadaali weydo ramadaan way waad sii fogaan mooyaane cadaab baad sii mudan mooyaane wanaagii khayr ka dheefimaysa talabaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadigii iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam soonkaaga salaadaada sadaqadaada umradaada khayraadkaad sameynayso
وإن وافقسنتها شريعة النبي محمد كتجي صلى الله عليه وسلم سير رسولك أسمي صلى الله عليه وسلم تانا هدي دعي ويدو أنت دداشو دذلك أقو بال مرو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي شريعة وحوش ديسي مركان وحويان وحب ماذا كفى إذن رمضان صون كاجي صلاة بنيدي عبادات كي طاعات كي الصدقات كي هل بعد نقول سوى وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ضد بدنا واحد شرا تاجن هبين كي صلاة وتاجن سوتشيد كودا صلاة وتاجي هنا وحكي لك هلي مايا هردهم بيكتاجن لكن وحوم الله قار واحد شرا مالك يوردن صوما لكن صوم كودا كليه وحكي لنا قاتشي أون بس واحد شرا ماله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لو قضى مرك حقيقي إن الدداشو ددال كاجنا إن أضوافتشيسو هذه هي السنة دي طريق النبي جينا صلوات ربي والسلام عليه عمل ير وسنة النبي وافق سنبا كفي عن عمل فربضان وسنة النبي جرم مرسل صلوات ربي والسلام عليه لو هذا قضى مرك حقيقيسو وحا خير فضيلة وناك لجها الله يو روح واحد كم يتدك مطيب بعد مركا كم النقونيسا بإذن الله تبارك وتعالى هديك لا ويكون جد بقدومي أنت أسي أيام كسر جبين إن شاء الله تعالى فضائشي بشهر رمضان صون كفضائشي سامد والفضائل جوني ولي بشهر فضائشي هذا كهالله لكن صون كفضائشي زاد لجاه الله وابد كله الصلاة ده كيلو تكذا فضائشي زاد لجاه الله وابد كله قرآن كيل آخرين فضائشي الشيخ كهالله كواسي وجوني وي لكن سجود بشهر هي فضائش هذا أي نحوجة تابعني توفيق الله إنه وفتشيو إلهنا تبارك وتعالى بشاس خيرات كذي وناك كذاس كوا كفاية الله إنه قديو هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم